bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal daawadayaal kulanti haboon meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyaga idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aan youtube-ka ku leenahay runsheeg saaxiibayaal daawadayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya oo diyaariyay mooshin xilka looga qaadayo shaqadan madoobe Cabdicasiis Lafti Gareen iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo midoobay in xilka la dhaafiyo shaqadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka 11aad oo hadda wajahaya culaysyo siyaasadeed kuwii ugu darnaa kulamaan caadi ahayn oo ka dhex socda gudaha magaalada Muqdisho oo u dhaxeeya labadaasi maamul xildhibaanada ku matala markaasi baarlamaanka shaqadan madoobe oo hadda la soo warinaya in uu rabo in uu markaasi lacag ku bixiyo in uu mooshinkaasi iska horwareejiyo saaxiibayaal warbixin ayaynu idinkaga haynaa idin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo xaalka shaqadan madoobe iyo wararkii ugu dambeeyay markaasi mooshinkaasi Biden oo Sacuudiga kala hadlay dil 5 sano ka hor ka dhacay Turkiga iyo ciidanka NISA oo degmada Afgooye ka soo qabtay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saadhaan like-na inagu dhiirigelisaan gamleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka kale saaxiibayaal daawadayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno xildhibaanada dowladda Soomaaliya ayaa diyaariyay mooshin xilka looga qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka 11aad shaqadan madoobe Saciid Cabdullaahi Deni iyo markaasi Cabdicasiis Lafti Gareen oo kulan qadka telefoonka yeeshay ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in ay markaasi lacag ku bixiyaan in xilka la dhaafiyo markaasi shaqadan madoobe maadaama Cabdicasiis Lafti Gareen oo cabsi badan ka qabo in shaqadan madoobe uu lacag ku soo bixiyo in isaga waa Lafti Gareen in dagaal siyaasadeed looga dhex abuuro magaalooyinka iyo deegaanada markaasi maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni oo dantiisa siyaasiga ka dhex arka taageerada Cabdicasiis Lafti Gareen ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu ku taageero in xilka la dhaafiyo shaqadan madoobe magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka 24 saac ugu dambeeyay waxa ka socday kulamaan caadi ahayn kuwaas oo u dhaxeeya xildhibaanada labada deegaan ama labada maamul ka soo gala dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana lagu karkarinayay mooshin la doonayay in xilka looga qaado shaqadan madoobe waxa la aaminsan yahay kulamadaas iyo lacagta ku baxaysa abaabulkeedaba inay iska kaashanayaan labada hogaamiye oo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni labada hogaamiye maamulada Puntland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni oo doonayay in dagaalka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka dhigo mid safmar ah oo maamul goboleedyada dhan ay markaasi qayb ka yihiin ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu garabka ugu horeeyo uu siiyo hogaamiyaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen haddii Cabdicasiis Lafti Gareen iyo Saciid Cabdullaahi Deni ay isku raacaan in markaasi xilka la dhaafiyo shaqadan madoobe waxay taasi muujinaysaa in markaasi dagaalka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu noqonayo mid markaasi dhab ah dhinaca kale shaqadan madoobe ayaa markaasi hadda waxa uu dadaal ku bixinayaa in xildhibaanada ka soo gala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya uu isagu ka mid yahay in markaasi uu kulamo la qaato si markaasi uu mooshinkaasi karkarsan uu meesha uga saaro sida la soo tabinaya xaalka ayaa ku xun shaqadan madoobe maadaama uusan hadda haysan wax dhaqaale ah oo labadaasi maamul xildhibaanadooda uu siin karo si uu mooshinkaasi isaga horwareejiyo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka soo gala dhinaca Puntland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa ah marka la isku daro xildhibaano aad u fara badan kuwaas oo noqon kara kuwa markaasi xilka ka qaadi kara shaqadan madoobe haddii ay dhab ka noqoto oo markaasi go'aanka ay hoosta ka xariiqaan lama oga sida uu xaalku isku bedelayo balse waxa hadda socda abaabul xoogan oo markaasi la doonayo in xilka lagu dhaafiyo shaqadan madoobe xilka oo laga qaado shaqadan madoobe dowladdan hadda bilowga waxa ay dhabaha u sii xaaraysaa khilaaf horley iyo dhibaatooyin markaasi ay wajahdo
kooxda Damul Jadiid. Siciid Cabdulaahi Deni oo hadda ku furan yahay dagaal siyaasadeed oo gudaha deegaanadiisa ayaa hadda waxa uu doonayaa in uu isagu dagaalkaasi uu kaga dhuunto dagaal kale uu la galo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kol hore waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay markaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen iyo Siciid Cabdulaahi Deni si markaasi uu dagaal ka gacan ugu siiyo dowladda khilaafka kala dhaxeeyana uu markaasi garab ku siiyo, balse Cabdicasiis Laftigreen oo doorashadu fooda ku soo hayso ayaa markaasi waxa uu go'aansaday inuusan dagaal la gelin dowladda federaalka ee Soomaaliya. balse hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in Shaqaadan Madoobe uu abaabul xoogan ka dhex wado magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed kaasoo ka dhan ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen. qodobada kale aan saaxiibayaal idin hayno aan eegi doonana waxaa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Sacuudiga kala hadlay markaasi dil 5 sano ka hor ka dhacay Turkiga. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dilkii saxafigii Sacuudiga ee Jamal Khashoggi uu soo qaaday oo kulan uu la qaatay madaxda sare ee Sacuudiga oo ku jira dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman oo ka dhacay magaalada dekada leh ee Jeddah. isagoo la hadlayay saxafiyiinta galabnimadii Jimcadii, Biden waxa uu sheegay in uu sidoo kale xuquuqda aadanaha baahida loo qabo dib u habeynta siyaasadda sida aan had iyo jeer sameeyo. waxaan cadeynayaa in mowduuca xuquuqda aadanaha uu muhiim u yahay aniga iyo Mareykanka, ayuu yiri Biden. waxa uu taasi ku daray in madaxweynaha Mareykanka uusan ka aamusi karin arinta xuquuqda aadanaha. Biden ayaa lagu dhaleeceeyay kulanka dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman oo hay'adaha sirdoonka Mareykanka ay soo gabeeyeen inuu mas'uul ka ahaa dilkii Khashoggi ee lagu dhex dilay qowmiyadda Sacuudiga Istanbul bishii October 2018. qodobada kale aan saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah ciidanka NISA ayaa degmada Afgooye ka soo qabtay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA ayaa la sheegay in ay howlgal ku soo qabteen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. waxaa howlgalkan laga sameeyay deegaanka Mukayga oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose sida lagu sheegay qoraalka lagu baahiyay idaacadda Radio Muqdisho. faahfaahintaasi dheer lagama bixin howlgalka iyo sida uu dhacay, mana cadda heerka iyo darajada uu Al-Shabaab ka joogay sarkaalkan magaciisa lagu sheegay Macalin Xaashi ee la soo xiray oo aan sawirkiisa la soo bandhigin. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanaysaan Ronsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad channelka subscribe inoo saadhaan, laakiin aan igu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.